kusoo dhawaada channelkeena Idiyas Ali Abdi fadlan hadii aad ku subtay channelka subscribe saar siina share garay aad baad u mahadsantahay maanta waxaan dul istaagi doonaa kulankii ajiibka ah ee xalay kooxda kubadda cagta Arsenal wajahday kooxda kubadda cagta Newcastle United kan kulan ma ahayn kulan uu dhaafay xitaa Prime Ministerka ee dalka England daawanaya ciyaartan wuxuu ahaa kulan loo wada sugay oo loo wada fadhiistay oo gambir badan la soo dhigtay waxaana la islahaa Arsenal ku dhiiqoda markale oo Newcastle United sidii xiliyaaradii hore oo looga bartay markale horyaalka Premier League ka cirib tartaa laakiin kooxda kubadda cagta Arsenal waxay dhahday may sanadkaas ma ahan kani waa sanadkan waa sanadkii guusha kani waa sanadkii horyaalka Premier League aan keeni lahayn Emirates Stadium kani waxay dhaheen xitaa wax kasta hadaa keentaan dhibcooyinka waxay ahaan doonaan Emirates Stadium kuwa looga tago Arsenal go'aan aday qaadatay kooxda kubadda cagta Newcastle United 3 dhibcood oo nadiif ay ku qaadatay laakiin sidee ku qaadatay sababteena ku qaadatay taageerayaasha Arsenal oo ani kamid ahay ma faraxsanahay imay ma faraxsanin anagoo badinay hadana ma faraxsanin wax aan ku farxanana meesha ma la soo bandhigin waxa koosgareynay bandhigaha xidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal ma rumaysan kartid tayada ay leeyihiin lacagta ay ku fadhiyaan iyo darajada ay title-ka ee horyaalka Premier League ay ka taagan yihiin iyo qaab ciyaareedkooda markaa aragtid waxaad ka quusanaysaa kubadda cagtooyada waxay ku nacsinayaan qaab ciyaareedkooda kubadda cagta Arsenal oo dhan ay ku nacsinayaan tan ma ahan Arsenal shan taageerayni tani ma ahan kooxda kubadda cagta Arsenal tii aan naqaanay oo weligeed taageeri jirnay Arsenal waxaan naqaanaa oo dhiirnaan iyo xifaaltan baan ay taqaan Arsenal waxaa baranay oo kubadda cagta isku dhiib ku soo aanbaxday Arsenal waxaan naqaanaa oo weerarka looga talagalay oo kooxda kubadda cagta Gunners la dhax sababta looga bixiyay waxay weerarkooda dardarka ahaa laakiin Arsenal shaas iyo Arsenal oo haatan taagan farqi weyn u dhaxeeyay waxa kale ma ahan waa qaab ciyaareedka xidigaha Arsenal oo qaab ciyaareedkooda dib u dhacay siday u ciyaaraan waxay sameynayaan iyo waxay qabanayaan cid rumaysan karta ma jirto qaab ciyaareedka xidigaha Arsenal kuwooda khadka dhex ka ciyaaro iyo kuwooda weerarka ka ciyaaro ma rumaysan kartid Victor Yogres wax aan u hayo ma lahan Arsenal waxay u baahan tahay weeraryahan darajo sare leh weeraryahan gool dhaliya markaan ku leeyahay ma ahan in lacag badan ka soo bixisid weeraryahan lacag badan inaad ku soo bixisid taas macnaheedu ma ahan inuu noqon doono kan ugu fiican Victor Yogres waa weeraryahan fiican waa weeraryahanka xiliyaareedkii haatan la soo dhaafay dunida oo dhan weeraryahanka ugu goolasha badana qaab ciyaareedka Arsenal oo haatan ku soo bandhigay hadaa aragtid xitaa waxaa nacaysa weerarka Arsenal oo idin ma rumaysan kartid Victor Yogres haddii sanadkan wuxuu dhaliyay 12 gool oo Arsenal ah 12 gool oo Premier League uu dhaliyay ma wax laga filanayaa 12 gool inuu Arsenal u dhaliyay sababta loo keensaday ma ahayd 12 gool Arsenal waxa uu dhaliyaba daafacyada iyo xidigaha qadka dhax ka ciyaaraya adoo weeraryahan oo 60 milyan lacag laga soo bixiyay in oo 12 gool meelahaas waqtigan la wareegtid oo horyaalkiina dhamaad yahay wax laga xishoodo wuxuu ka hor yimid kooxda kubadda cagta Liverpool Manchester City Manchester United Chelsea intooda taageero ka ahaa daawadayaal anaga oo kale uu ka ahaa garoonka kulamada taas waa dib u dhac kale oo kooxda kubadda cagta Arsenal ku yimid man ahayn sababta Victor Yogres loo soo iibsaday Victor Yogres sababta loo soo iibsaday ma ahayn inuu kulamadaas taageero ka noqdo Victor Yogres sababta loo keenay waxay ahayd inuu weeraryahan kooxooyinka waaweyn dile ay u baahneed Arsenal weeraryahan shulshulay oo 12 gool ilaa 15 gool dhalay oo walba waa haysanay Victor Yogres ma u keensan anaga saas Victor Yogres sababta loo keenay waxay ahayd anaga waxaan rabnay weeraryahan 25 ilaa 30 gool dhalin karo 12 gool hadda inta kullu wareegoy labada xilli ciyaareed oo la soo dhaafay Kai Havertz oo Arsenal joogay 15 gool u dhalinay bal ka waran weeraryahan dhan oo lagu soo lacag beelay chance la siiyay ee hadda 12 gool inuu meesha ku wareegto waa sababaha kamid ah Arsenal in koox walba ay la tartanto oo pressure saar dhibaatada ugu weyn Arsenal oo qayb ka yahay Victor Yogres qaasatan marka uu eegtid kulankii xalay hadda waa aragtaa laba chance oo waaweyn uu kooxda ka qasaariyay chance-ka koowaad waa kan waa chance-kii ugu fiicnaa kubadda markii Victor Yogres la siiyay wuxuu haystay 3 option-ka koowaad oo ah kubadda in option-ka koowaad oo ah go'aamada weeraryahanada oo goolasha inay dhaliyaan jecel waxay sameeyaan weeraryahanada kubadda inay hore u dhaqaajiyaan ama booskooda ay ka laadaan ay goosha dhalin karaan maadaama goolayaha shabaqa ka soo bixay oo banaanka uu taagnaa
waxay samayn karaan gooshaas inay toos u aadaan waa haddii ay jeclaystaan inay gool iyaga dhaliyaan oo saaxiibadooda caabin waa optionka koowaad oo weeraryahanada qaataan optionka labaad waxay ahayd kubaddan inuu ku xiray saaxiibadiisa laba xidig oo ka mid ah oo boos macaan u qaateen inuu ku xiray yahay iyadiina uu awoodi waayay maskaxiyan uu u daalay maskaxiyan uu u dilan yahay xitaa aqli ma lahan aqli ku filan oo kubaddan ku manage karaysan kara ma lahan Victor Yokeres wuxuu awooday kubaddan inuu banaanka u dhigay saaxiibadiis kubad taraarax oo ninkii asir raacnaa lugihiisa ku dhuftay kubad taraarax ninkii asir raacnaa oo lugihiisa ku dhuftay taas ma la dhihi karaa weeraryahan lagu duuli kara oo anaga shanta xiliyaareed soo socda aan ku tartami karno UEFA Champions League iyo horyaalka Paris Premier League ugu tartami kara aan dhihi karno waa maya kan labaad Declan Rice wuxuu cunay laba chance oo kuwaas ka fiican Declan Rice xitaa wuxuu ilooyay kubadda sida loo laado shantii kulan ugu dambeysay Declan Rice waa xidig ugu xun kooxda kubadda cagta Arsenal haddii aad leedahay Declan Rice wuu fiicanaa xiliyaareedkii tagay iyo xiliyaareedkan oo hadda dhamaadka maroy intaas buu fiicanaa laakiin shantii kulan ugu dambeeyay waa kan ugu xun kooxda kubadda cagta Arsenal Declan Rice yeel ama diid aday ku taala haddii aad beenteeda u malaysid soo booqo kulamada ugu dambeeyay qaladaadkuu sameeyay iyo sidoo kale waxaad fiirisaa qiimeynta xidigaha darajada uu ka joogo intaas kaliya ii soo fiiri Martin Zubimendi inaad ku dhigtid way ku fududahay laakiin kan ku xun inaad ku dhigtid ma ku fududo Martin Zubimendi waa xidig dhawaangal ah oo kooxda ku cusub way jiraan tiin badan hadda waxaa laga yaabaa inay isdheedin maxaa laga rabaa Declan Rice waa xidig fiican Declan Rice maxaa laga rabaa maxaa Declan Rice ma saas leedahay sports waxba kama ogin qaar idin kamid ah inay saas dhihi doonaan waa ogahay laakiin laba sabab aan ku sheegaa tan koowaad oo ah wax anaga Declan Rice ka filanayna iyo wax Martin Zubimendi ka filanayna isku mid maahan Declan Rice waxaan ka rabnaa waa xidig England uu ku dhashay horyaalkan tan ilaa iyo yaraantiisa haatan 26 jir yahay uu ka ciyaarayay wuxuuna yaqaanaa qaab ciyaareedka xidig walba iyo koox walba waxaan ka rabnaa kulan walba maskax ka weyn kooxda naga soo horjeed waxaan ka rabnaa hogaamiye ruuxi ah oo kulan walba la imaan kara natiijo ka wanaagsan kooxda naga soo horjeed iyo xidigaha Arsenal oo ciyaara dhamaantood darajo ka weyn aan ka rabnaa Declan Rice that's why anaga ugu bixinay lacag gaaraysa 105 milyan sababtaas aan ku sheegaa Declan Rice waxaa laga rabaa leader Arsenal hogaamiye u ah oo kulan walba ka soo muuqanay hadda Declan Rice shantii kulan ugu dambeeyay wuxuu noqday retired caadi ah waa oday daalay ama loo dhaqmaa kubadda markay asiga 1v1 isku helaan sida daafacyada oo kale gadaal u ordaa waa laga dambeeya daafacyada gadaal jira adiga qad dhaxaa tahay waxaa laga rabaa ninka in act u saartid oo dhaxda ka xureysatid laakiin wuu sii cararaa Declan Rice daafacyadu dabada la galaa taas waa dib u dhac kooxda kubadda cagta Arsenal hadda ay ku jirto sababta ay dib u dhacan ugu imidna waa qayb ka mid ah yeel ama diid aday ku taala Declan Rice balaanka kale aan ku haysto waxay tahay wuxuu gabi ahaan biloway kubadihii laadka lahaa crossidii koornooyinkii waxyaabihii asiga nagu waday oo dhan hadda xabad ma ku dhex jiro goolna ma caabiyo goolna ma dhalay wuxuu qabanaya asixitaa ma oga adigana ma ogi shantii kulan ugu dambeysayna waa xidig oo qiimeynta yar ee kooxda kubadda cagta Arsenal la yimid waa sababta ugu dhiganaa Martin Zubimendi waa xidig cusub darajada anaga ka rabna Declan Rice iyo tan Martin Zubimendi aan ka rabna isku mid ma noqon karaan tusaale Eze hadduu imid waxa uu soo qaadanay attacking midfielder waxaan ka rabnaa inuu ka wanaagsanaado in Martin Odegaard wuuna ka wanaagsan yahay 100% waa sababta anaga ka rabna sababta anaga xidigaha cusub soo qaadan waa sababtaas waayo ninkan England weligiis ku ciyaaray England u dhashay England u ciyaaray ninkan la yiraahdo Eze saas darteeda qaab ciyaareedka kooxooyinka England wuu yaqaanaa wuxuu dhaliyaa sawaariq gool aan caadi ahayn wuxuu haystaa kubad kalsooni ku dheexan tahay wuxuu sameyn karaa kubad inuu qabto 4 ilaa 5 qof dhexdooda si xorriyad ah inuu ugu laafiyo laakiin xidigaha Arsenal intooda kale dhiirnaantaas ma haystaan kubadda markii loo soo baas iigaaba jaray way qalqalaan cabsiga ka muuqda Declan Rice ka ah Martin Zubimendi ku jira xitaa daafacyadii cabsidaas ku furan wax koosgareeyna ma aqaan marka Arsenal waxay u baahan tahay maskax xasilooni qabta maskax deganaan xidigo u firfircoon guusha xidigo u socda inay wax ku ool noqdaan xidigo u socda inay champions noqdaan
laakiin baqdintan Arsenal ka muuqata xitaa 1v1 haddii ay ku helaan goolhaya ma dhalin karaan maskaxda booq uga furan shock kala ku jira cabsi kala ku jirta Declan Rice kubad oo asiga hadduu taabtay xitaa gool tahay oo iskala dhex istaagay meenay dishood wuxuu qabanaya si xitaa ma oga ninka liida Victor Yokeres janisa uu khasaari waa aragta kubad haddii uu baasi gool tahay haddii uu tuurano gool tahay labadaba ma sameeyay ninka agtaagan oo lagu xawo garaacaya marka Arsenal waxay u baahan tahay maskaxiyan in loo dhis waxayna la sheekaystaan xidigaha Arsenal social media iyo posterada oo dadka mucaaradka soo dhigan iyo hadalada dadka social media intaasna laga joojiyay Arsenal xidigeed anigu tal ahaan waxaan silaa inay social media oo dhan ay ka baxaan oo nin walba darajadiis iyo maqaamkiis wuxuu yaqaan ciyaar nin walba kubadda markay soo gaarto wuxuu isleeyahay ardadkii waxay sheegayaan waa kubaddii waa lagu sii ama lagu soo gaara ee haddana qalad kale ama sameeysa cabsiya ku jirta meel ma geen karaan marka horyaalkan Arsenal way ku guuleysanay laakiin waa goorma waa markii xidigaha Arsenal dhiirnaan la imaadaan iyo inay guuleysan karaan la imaadaan koox yar iyo koox weyn hadaa Burnley la ciyaareen hadaa Newcastle la ciyaareen hadaa Man City la ciyaareen hadaa Chelsea la ciyaareen iyo haddii Liverpool la ciyaareen waa isku kaymid kulligood waa cabsanaa dhammaantood daafaca ku jirnaa Arsenal shii la yaqaanaa counter attack raadinays waxaan kaloo arkay shimbiro badan oo qaylinaya Arsenal waa ka tagaa Arsenal marrabna haddii xilli ciyaareedkan Premier League qaado weys waa ka tagayna Arsenal weligeed iyo horyaal qaadeen weligeed iyo Champions League qaadeen xitaa heerka hoose u dhacday biha u dhacday diha u dhacday waa la soconaya Arsenal saas baan u taageeraya sidaasaan weligeed ahaan doonaa waxaan ahaan doonaa taageero Arsenal waxa la hadlayaa dhiiga Arsenal yaa lagu cabsi gelinay Arsenal ka tagaya goormo imid qofka ka tagay yaa sawacad yaa ugu baahan Gunners dadka saas dhahay waa dadka martida waxay ka imaadeen Manchester United Chelsea iyo kooxooyinkan kale ay ka imaadeen qaab ciyaareedkooda markuu dib u dhacay waxay isdhahay Arsenal haatan koox tartamaysa ahane ee sharka Arsenal iska xir Arsenal isugu imaamad ku madax digsay u imaadeen koobayna u imaadeen laakiin taageero Arsenal ma ahan xitaa kuma jira hal qof 10 sano taageero Arsenal u aha inuusan ku jirin waa u dhaaranaa dadkan saa u qaylina waa bixina goorma imid goorma horta taageeraha Arsenal goorma ku soo biirtay yaa ku bellami yaa ku wacday kooxda ka imid oo laaba Arsenal waa Arsenal taageerayaal ku kalsoon darijo walba iyo maqaam walba ay leedahayna oo ku raacsan ku taageersanaysa cid ay u baahan tahay malahan we are Ghana always Ghana aad baad u mahadsantiin saaxiibadeyda dhiiga Arsenal in muuqaalkan shargaday mucaaradkana gaarsiiya in subscribe taada like taada waxay noo noqon doontaa dhiirigelin marka naga soo dhis aad baad u mahadsantiin saaxiibadeyda